بسم الله الرحمن الرحيم باقنا بدات كإنداد قرد كي داليراد الصوماليات أنغو إنداد قرد كصوماليات كسوغن عاصمة جمهورية فدرالك صوماليا إيا داليراد الصوماليات درسي ظروفها أدق إدالك كجيرة كارهان حالدها نولاد شقالآن تباهسن باهيدا لوقبو maalgashi iyo kobac dhaqaale ee maankana ku haya nabadda iyo xasiloonida siyaasadeed ee wadajirka bulshada inay yihiin tiirarka ugu muhiimsan ee lagu gaari karo horumar waara mustaqbal wanaagsan iyo shacabka Soomaaliyeed oo wanaagsan annagoo ka walaacsan iska horimaadyadii ka dhacay caasimadda 3 bisha ilaa 4 bisha 2026 Juun walina taagan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada ay qusayso qodobadan kow in si degdeg ah loo joojiyo dhammaan iska horimaadyada hubeysan hadallada xanafta leh dacaayada kala fogeynaysa bulshada iyo wax kasta oo si toos ah ama si dadbanba u dhaawici karta nabadda iyo xasiloonida iyo wada noolaanshaha ummadda Soomaaliyeed labo siyaasadda iyo hogaaminta dalka in lagu maareeyo wada hadal iyo is-afgarad in arrimaha siyaasadda maamulka iyo hanaanka dawladnimada lagu xaliyo wada hadal iyo is-afgarad iyo isu tanaasul iyo in ka qaybgalka bulshada si loo xoojiyo kalsoonida shacabka loo hormariyo dawladnimada loona abuuro jawi ku haboon kalsooni bulsho waarta waxaan xoojinaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabo wada hadal u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka si xiisadaha ka dhashay khilaafka siyaasadeed ay u degaan dadka barakacayna guriyahooda ugu soo noqdaan qodobka saddexaad dib u qaabeynta dawladnimada in aqoon-yahanada dhaqanka culimada haweenka dhalinyarada siyaasiyiinta waxgaradka Soomaaliyeed ay hormuud ka noqdaan wada tashiga qaranka oo dhab ah si la xal kama dambaysa loo gaaro qaabeynta dawladnimada Soomaaliya loona dhiso nidaam dawladeed oo lagu wada qanacsan yahay kana maarmaan khilaafaadyo siyaasadeed iyo murano soo noqnoqda oo caqabad ku noqon kara nabad dhiska iyo dawlad dhiska Soomaaliya iyo horumarka gunaanadka nabadda waa aasaaska dawladnimada wada hadalkuna waa jidka ugu haboon ee lagu gaari karo xal waara iyo Soomaali oo midaysan xasilooni iyo horumar waala maasanidin marwa fertility center waa xarun caafimaad oo soo celisay farxadii iyo rajadii qoysas badan oo Soomaaliyeed